caaway waxay noo tahay habeen weyn oo ku weyn dhammaan bulsho weynta reer galmudug meel ay joogaan badal iyo dabad. waxaan leenahay hambalyo meel la joogaba aasaaskii ama dib u aasidii magaca galmudug ee 14 jirsaday. dad reer galmudug ka kooban ay runtii 14 August 2006 dhidibada u aaseen hamigii iyo himiladii laga lahaana ay hirgashay dhowr sano ama sanado ka hor oo ay galmudug ku midowday. July ayaa galmudug ku midowday magaca galmudug dabadeedna ay u soo guurtay ama u soo wareegtay caasimadda galmudug. waqtigaas habeenkaas caawo kale laga joogo meel ay joogaan reer galmudug waa habeen taariikhiya waa taariikh runtii la xusi doono lagu soo laalaaban doono xusuus dheerna ku leh reer galmudug. galmudug waxay soo martay maraaxil kala duwan iyo xaalado kala duwan ugu dambaynna waxay ku dhammaatay magacaas taariikhiga ee galmudug ama ay isugu timid. runtii dad baa yidhaahda galmudug waxaa la sameeyey 2015 July lama samayn ee galmudug waxay ka soo qayb qaadatay talooyin masiiriya oo Soomaaliya lagu soo waday looga soo gudbay xaalado adag ayay heshiisyo iyo saxiixiyo iyo go'aamadooda wax ku lahayd oo ay soo martay. sidaa darteed halkaas waxaa ku haray dadka qaar inay yidhaahdaan galmudug waxaa la sameeyey 2015 in la xuso waxay leedahay midaan gaar ah. galmudug waxaa u dhisan xukuumad tayo leh awoodda inay xusto taariikhdeeda muujiso taariikhdeeda la timaado hawsha laga rabo. taariikhda markaan intaas u daayo reer galmudug waxaan ugu baaqayaa meel ay joogaanba midnimo wadajir barwaaqo iyo horumar. walaalayaal mudanayaal iyo marweyn si aad og tihiin ama horeba loo xusay galmudug waxay martigelisay shirarkii muhiimka ahaa ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen dhuusamareeb 1 kuna gaareen heshiis hore loogu marinayo hore loogu qaadayo lagu soo dhammaynayo wax kasta oo jiray oo daldalool ah. waqtiga hadda la joogo ama dalka uu joogana go'aamo ku aadan ay isla qaateen. sidoo kale waxaan martigelinay dhuusamareeb 2 oo ay isugu yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo iyadana ay ka soo baxeen go'aamo dhaxalgal ah la isku afgartay howlihii la isugu yimid ee masiiriga ahaa ee Soomaali maanta ugu muhiimsanaa in la iska waraysto. waxaan noo ballansan ama ballanku ahaa ay Soomaali ku ballantay oo madaxdii qaranku ay isugu timid 15 bisha August in la isugu yimaado dhuusamareeb 3 laguna gaaro ilaahay idankiisa sidaan rajaynayno
go'aamadii iyo hawlihii hor yaalay oo Soomaaliya ay sugaysay kuwii ku aadanaa ama ugu habboonaa in lagu gaaro ballankaas iyo gogoshii reer galmudug dhigeen waa sideedii berri oo ay ku beegan tahay 15 August waxaan rajaynaynaa wafuudii ugu horeysay inay yimaadaan oo aan soo dhaweyno intii ay berri u suurtageli weysana intii aanay berri u suurtagelin inay yimaadaanna ay imaan doonaan waqtiga gadaalka imaan doonaan oo ay la soo qabsan doonaan oo soo dhaweynayno halkaan aan rabo inaan ka iraahdo dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay reer galmudug diyaar garoobeen waqtigiina ku diyaar garoobeen lana sugayo nagana soo qayb galaan aan ku soo dhaweynayna gacmo furan iyo qalbi furan